mushaaraadka ciidanka waa waajib saaran dowladda Soomaaliyeed in askariga xuquuqdiisa ay bixiso. askariga waajib uu leeyahay waajibkiisa inuu guto ka muwaadin ka askari annagana waxaana saaran xuquuqda askarigaas uu leeyahay in la bixiyo. mushaaraadka guud ahaan waxaa ka wakiila dowladda Soomaaliyeed inay bixiso. hadda telekoobkii aan sameynay teedi kale nambara waxaan rabnaa inaan ku aadino 12 Abriil oo ku aadan khamiista inaan ku aadino ciidamada la tababaray sida ciidanka hadda ay tababareen xeradan General Golden lagu tababaray imaaraadka ay tababareen waa ciidan imaaraadka ay tababareen laakiin waxay ka tirsan yihiin xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidankaas nambarkiisa la siin doona mushaaraadkoodana dee waxaa ka mas'uula dowladda Soomaaliyeed inay bixiso haddii la idmo insha Allah. macnaheedu waxay tahay in ciidamada ay mushaaraadka u soo jirtay dowladda imaaraadka inay dowladdu la soo wareegayso oo mushaarka bixinayso nambarka ciidanka lagu daystiray dowladda Soomaaliyeed guud ahaan xil ayaa ka saaran ciidamada meel walba ay joogaan. dugsigaasi waa dugsi tababara mushaaraadka la siiyana kuwa ku meel gaaray ahayeen sidoodaba ku meel gaarkaasna meel uu ku eg yahay kadibna waxaa la wareegi doona dowladda Soomaaliyeed ayaa la wareegaysa mushaaraadka siinayso. haddana waa la diyaariyey qorshahooda tirakoobkooda la diyaariyey nambaradooda waa la diyaariyey waxaan ku aadin doonaa 12 Abriil nambarada in la siiyo mushaaraadkoodna waa la siinaya. horay xamadaas eedayn badan oo imaanaysa dadku u jeedinayaan oo leeyahay dowladda kala qaadan jiray marka hadda miya nambar loo sameeyay ciidamada xoogga dalka ugu noqonaya horay ka wadayna ciidanka tababar ay u joogeen markii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed way ka mid ahaayeen tababar ay u joogeen hadda qeyb ayaa la tababaray marka tababarkii guud ahaan hadda way dhameysteen inta badan way dhameysteen marka hadda nambar loo sameeyay hadda la raba guutooyinka iyo maxaa la yiraahdaa ururada iyo xurimaha xoogga dalka Soomaaliyeed in loo kala qaybiyo haddii la idmo insha Allah. marka dowladda imaaraadka maxaa la sheegay in mushaaraadka isticmaalka u sii jirto dowladda Soomaaliyeed iyo noqtaas annaga ka dowlad ahaan waajibka annaga waxaa waay ciidanka annaga inaan kafaalad qaadno mashaariicdiisa inaan bixino waa mas'uuliyad annaga na saaran. marka mas'uuliyadda annaga na saaranna inaan dad kale ka codsano runtii waa u mahadcelinaynaa dowladda imaaraadka tababarka ay siisay ciidankaas iyo xeradaas tababarku ay furtay oo qayb ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.